Assalaamu calaykum dhammaantiin daawadayaal kusoo dhawaada cashir aynu kaga hadli doono calaamado inta badan la isku qaldo iskuna eg oo laga yaabo inaad isku qaldo inta badanna su-aalaha laysoo weydiiyo. Calaamadahan meesha idinka muuqda ayaa ka mid ah qaybta pageka facebooka aynu ku leenahay ayaa su-aashan in badan laygu soo weydiiyey dadyow kala duwan, markaasaas darteed ayaan videogan soo diyaariyey. Calaamadahan waxaynu kusoo qaadanay cashir hore oo aynu hore usoo diyaarinay, laakiin waxaa ka maqnaa calaamadan fallaadha yar ee midna bidix ujeedo midna midigta ujeedo ayaan ku jirin kuwii hore. Marka waxaynu soo qaadanuun eingeschränktes Halteverbot iyo eingeschränktes Parkverbot umaan si guud ahaan uga soo hadalnay, laakiin kuwan fallaadhaha yar ee cadaanka ay ku jiro kumaynu soo qaadan cashirkii hore. saas darteed ayaa laynoo soo weydiiyey in badanna laynaga codsaday in video kasoo diyaarino. Sidaad ujeedaan waa calaamado aada isugu eg muuqaal ahaan, laakiin fallaadhahaas iyo xariijimaha dhexda kaga qoran oo kaliya ayay ku kala duwan yihiin. Marka hadda ayaynu videogan si fiican oo faahfaahsan mid mid uga hadli doonaa. Kusoo dhawaada dhammaantiin. calaamadani waa Halteverbot, waxayna kaa mamnuucaysaa inaad gaarigaaga istaajiso muddada aad ku jirto calaamadani meesha ay ku taalo. Markaa laguma ogola inaad meeshan istaagto, gaariga inaad ku baarkintana laguma ogola. Macnaha guud ee ay ka hadlaysaa guud ahaan waa intaas inaan meeshan aan loo ogolayn inuu gaarigu istaago ama in gaariga lagu baarkimo. Calaamadani waa Halteverbot, waxba kagama duwana tii hore aynu hadda soo aragnay, laakiin waxa kaliya oo ay tilmaamaysaa fallaadhan midigta ujeeda ama korka ku sawiran. fallaadhaas xagga midigta ujeeda ee korku waxay tilmaamaysaa halka ay ka bilaabmayso meesha aan lagu ogolayn inaad gaariga istaajiso ama aad ku baarkinto. Calaamadaas wixii xagga dambe ka xiga ama meesha aad ka timiday ee ay kaaga muuqatay wixii dhinaca shishe ka xiga waxay ka dhigan tahay inaad meeshaas istaagi karto ama aad ku baarkimi karto adiga oo kolba iska fiirinaya calaamada meesha ku taala haddii ay tahay meel baarkina ama meel loogu talagalay in la istaago. Marka calaamadan waxay tilmaamaysaa meesha ay ka bilaabmayso meesha aan lagu ogolayn inaad istaagto ama gaariga aad ku baarkinto. dariiqan meesha uu ka bilaabmo gaarigaaga oo socda ayaad ka gudbi kartaa haddii aanay ku joojin ishaaro ama wax lagama maarmaan ay tahay inaad ka istaagto oo halis ah. Calaamadana waxay tilmaamaysaa meesha ay ku dhammaatay ama ay ku eg tahay meeshii aan lagugu talagelin inaad istaagto ama aan la ogolayn inaad istaagto ama gaariga aad ku baarkinto. waa halkii ay ku dhammaanaysay. calaamaduna fallaadha xagga bidixda ayay ujeedaa, hoostana waa lagu qoray. calaamadana waa Halteverbot, kuwii hore waxba kagama duwana. waa halkii ay ka bilaabmaysay oo xagga midig ujeeda iyo xagga ku dhammaanaysay oo xagga bidix ujeeda. marka taas macnaheedu waxay noqonaysaa in ay tahay inta u dhaxaysa. calaamadan badanaa waxa lagu dhajiyaa ama lagu arkaa meesha aad ka bilowdo wadada noocana iyo halkay ku dhammaato inta u dhaxaysa. tusaale ahaan wadooyinka dhaadheer ee laga yaabo meeshaad ka bilowday inaad ilowdo ama aad tiraahdo wadadii waad ka baxday, si laguu xasuusiyo inaad weli ku jirto ayay tilmaamaysaa. marka halkaad ka bilowday iyo halkay ku dhammaanayso inta u dhaxaysa haddii ay meel aada u fog tahay, inta dhexe ayaa calaamadan lagu sameeyaa. calaamadana sidii aynu casharadii hore kusoo qaadanay waa calaamad kaa mamnuucaysa inaad gaariga halkan ku baarkinto. waa Parkverbot, waa meel aan lagu ogolayn inaad ku baarkinto gaarigaaga, laakiin waad istaagi kartaa ugu badnaan 3 minute haddii aad qof ku dejinayso ama aad qof ka qaadayso ama alaab aad dejinayso ama aad alaab ka qaadayso. intaas waa lagu ogolyahay inaad istaagto. alaab haddaad dejinayso ama aad saarayso gaariga waxaa laga yaabaa 3 minute inay ka badnaato, laakiin marka aad qof dejinayso ama aad qof ka qaadayso meeshan waxaa lagu ogolyahay inaad taagnaato ugu badnaan 3 minute. sidii calaamadii hore aynu soo aragnay hadda waxay tilmaamaysaa tana xagga midigta ayay fallaadhu ka jeedaa. waxay noqonaysaa markaa meesha ay ka bilaabmayso meesha aan lagu ogolayn inaad ku baarkinto gaariga. waad istaagi kartaa ugu badnaan 3 minute, alaab baad ku dejin kartaa, qof baad ka qaadi kartaa. intaas waa lagu ogolyahay, laakiin waa meeshii ay ka bilaabmaysay meesha aan baarkinka lagu ogolayn. calaamadana sidii hore waa meesha ay ku dhammaanayso ama ay ku eg tahay. fallaadhu bidix ayay ujeedaa, hoosta ayaana la dhigay. marka waa meesha ay ku dhammaanayso meeshii aan lagu ogolayn inaad ku baarkinto. wixii intaa ka dambeeya baarkin baad arki kartaa. calaamadaha dambe aad aragto ayaa ku maamulaya.
calaamadana waa labadii fallaadhood ayaa ku yaala midii bidixda ujeeday iyo midii midigta ujeeday. taasina waxay noqonaysaa sidii aynu hore usoo sheegnay calaamadii hore inta u dhaxaysa meesha aan lagu ogoleyn inaad gaariga ku baarkinto. waxaana inta badan calaamadan la dhigaa meesha uu dariiqu dheer yahay ee laga yaabo meeshaad ka bilowday iyo meesha ay kaaga dhammaanayso wadadu inay in cabaar ah ama ay muddo ay isku jiraan. saas darteed waa xasuusin lagu xasuusinaya inaad weli ku jirto meel aan lagu ogoleyn inaad baarkin ku samayso gaariga. waxaase lagu ogolyahay inaad istaagto 3 minute ugu badnaan, dad dejiso, dad ka qaado, alaab dejiso, alaabna ka qaado. intaas waa lagu ogolyahay, waad samayn kartaa, laakiin baarkin lama ogola. intaas waxay noogu eg cashirkeenii koobnaa ee aynu kaga hadlanay calaamadahan inta badan la isku qaldo ama isku eg. intaynu cashir dambe ku kulmi doono waad mahadsantihiin dhammaantiin. waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dhalinyartii su-aalahan inala soo wadaagay ee na soo weydiiyey nagana codsaday inaan video kasoo diyaarino. dhammaantiin waad mahadsantihiin. intiina kale waxay aad su-aal qabtaan waxaad nagula soo xiriiri kartaan ama aad noogu soo gudbin kartaan pageka aanu facebooka ku leenahay ee soomaalida jarmalka, Somalis in Deutschland. linkiga hoose ayaynu kusoo qori doonaa. halkaas ayaad sii klik garaynaysaan si aad ugu biirtaan pageka, aad qayb uga noqotaan. dhammaantiin waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullah.